waan annagu kharashka bixinno baan qabanaynaa oo baara aan geyno human rights horteeda aan dhigno. dhallinyaradii iyo odayaashii xafladdan quruxda badan soo qabanqaabiyey ee baroordiiqda ayaan aad iyo aad horta ugu mahad celinayaa. marka labaad waxaan u mahad celinayaa shacabka reer Columbus ee naga soo ajiibay inay noo yimaadaan oo nagala qayb qaataan baroordiiqda iyo dhibka nagu dhacay inay ka dhiidhiyaan. run ahaantii waxaan rabaa dhowr qodob inaan taabto. odayaashii igu horreeyey baa waxay ka dhawaajiyeen inaanu kala qaybsannahay. 14 isin bay leeyihiin deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn. mowqifkoodii ama miidiyaha ama meel walbood ka aragteen. waxgalkii iyo aqoon-yahanadii deegaanku lahaayeen iyagana waad aragteen codkoodii. gabdhihii iyo haweenkii iyo guuto koowaadna waad aragteen. wax horta kala qaybsanaan la yiraahdo ma jirto. haddii awal horena lagu xamanayay inaanu xagga u janjeerno waxaanu caddaynayaa in qof kastoo Sool iyo Sanaag iyo Cayn degani ay ka go'an tahay inuu dagaalamo reeryada tuuro oo cadawgana uu iska kiciyo. waxaanu diyaar u nahay oo aanu ka rabnaa Soomaali. horta annaga waxaana loo dilayaa maxaad Soomaali weyn u tihiin. waxaanu u dhimanaynaa dadka yaga loo leynayaa ama loo barakicinayaa waxa maxaad u doorateen Soomaali weyn, maxaad u rabtaan Soomaali weyn. qof kastoo Soomaali weyna wuxuu xaq u leeyahay maadaama annagu aanu horena xornimada u dhalinay haddana aanu taagannahay inay Soomaaliya kala goyn. waxaanu xaq u leenahay in lagu taageero. xoogaa waxaad moodaa dawladda federaalku inay naga sii jeedo annagoo hawshoodii hayna oo aanu diyaar u nahay inaan dalkaas ilaahay wuxuu horta meesha noogu uumay inaanu adadaygaanu dadka dheernahay. mar aqoolayaana dhaliilo yiraahda dhinac marba dhinac bay u socdaan iyo waxbayna yiraahdaan. laakiin ilaahay baaba wuxuu noo dooray labada buuro dhaxdooda inaanu deganaano annagoo tabartayada aad ogtii. haddana aanu ku adkaano in Soomaaliya ay kala goodo aanu diidno oo aanu biriishkii Soomaaliya isku hayn lahaa inaanu ahaano. marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan kaloo ku darsanayaa dadkii fundraising-ka halkan gacmaha ka taagay maadaama anigu aan ahay isimadii gobolka anigu aan ka joogo ama aan wakiil ka ahay waan u mahad celinayaa. waana si wanaag in la arko dadkii inay maraqsadaan independentgooda. waana we condemn action maamulka Somaliland ay ku sameeyaan dadka shacabka ah. sidaas daraaddeed anigu waxaan u taagnahay position city council city of Columbus. magaalada waxaa deganeen muddo ku dhow 30 sano. dhawaan waxaan sameynay taariikhdaas oo ahayd labadii qof ugu horeysay Soomaaliya inaan ku darno legislative-ka Ohio. stepka ku xigay insha Allah waxa weeye waxaan maraqsanaynaa qaybteeni oo ah city council city of Columbus oo aan wad weyn ku leenahay. marka city waxaan u taagnahay city council. waqtigaana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo labada xildhibaan oo aan dhawaan aan dooranay oo la dhaarin doono qaarkood weegan aan qaran dhaarin doono sida state representative Ismaaciil Maxamed iyo Maniira. fadlan soo istaaga adinka oraale. aad iyo aad marka hore inaan mahad celiyo walaalkay Casey walaashay Faadumo oo taqaani Faadumo Khaatimo iyo dadkii soo abaabulay dhanba xafladan runtii safar dheer baan ka soo galay anigu. marka wali aan hurda igu jirtay wali laakiin Faadumo ay soo wacday oo fadhi meesha ma yaalo. marka alxamdulillah aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan degdeg si ku imaado. marka labaad insha Allah waxaan rabaa horta marka wareysa inuu runtii muruga aad iyo aad xaalada ahayd anoo Nairobi joogo runtii ba xaaladan maqalnay dhibaatooyin ka dhacay runtii abaabul dhaqsaaba dhacay which is wax aad iyo aad u qurux badan oo runtii SSC dadka degan deegaanadaas runtii dhaqsaday u kaceen. Nairobi xaflada ka dhacayeen. Nairobi aan ka imaaday laba bari ka hor kulama ka socday waqtigaas mid kamid ah ka qayb galay runtii dhaqsadu u faafay dadka si u kaceen u dareemeen. Soomaaliya oo dhan ba u danqatay wixii dhacay runtii ka horta waxa way kow runtii dadaal iyo firfircoonimo oo reer SSC runtii ah iyo Soomaali weyn oo runtii kacday xaaladii dhacday kaana wax lagu farxo waaye.
marka saddexaad runtii kulligiinba horta inta hadda lacag bixiyey dadkii waqti geliyey runtii ilaahay ajra ka siiyo kulligoodba insha allah ilaahayna runtii ha u noqoto waxay la bixeen oo runtii aakhirana ay wanaag iyo ajir ka heli doonaan insha allah sida uu I think adeer Timajilic baa si fiican uga dhawaajiyey qodobo badan sheegay runtii wanaagsan ko horta waxa waaye wixii in laga hadlo runtii oo la sheego wax khaldan oo ahaa aad u xun wixii dhacay dadkii dhib loo geystay ilaahay u naxariisto kuwii dhintayna insha allah kuwii noolna ilaahay ha boogadayo labana in horta ficil lagu daro wixii kadib in wixii xoogaa wax oo runtii solution in loo helo long term kaasna runtii Cabdulqaadir Timajilic si fiican buu taabtay ma sha Allah waxyaalayaasha loo baahan yahay dhig joojin la suubiyo in marka hore saxbadaha iyo dhib kala joojiyo dagaalka wada hadal loo wada yimaado la wada hadlo war maxaa la isku haystaa maxaa